waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa channel Kubal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha cusub oo shaaciyay sida uu u wajihi doono arinta gobolka Gado iyo kaalinta golaha wasiiradiisa cusub ee xisbiga UPD kiiska Igraan Tahliilna waa uu sanad jirsaday haddaba tallaabade ayaa laga sugayaa xukuumadda cusub iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan Ruushka oo wajahaya guuldaradii ugu weyneed muddo 25 sano qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka channel Kubal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaa nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina channelkan aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi si faahfaahsan uga hadlay sida ay xukuumaddiisa u wajihi doonto arinta gobolka Gado Xamse oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa shaaca ka qaaday in arinta Gado ay uga maarmi doonaan dib u heshiisiin si looga dhabeeyo halheeska madaxweynaha ee Soomaaliya heshiisa xukuumadda aan hogaaminaya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay waxaa dhexdhexaad u ah Soomaali heshiis ah marka waa in la heshiiya waa in dadka degmada dhexdeeda ama tuulada jooga ay heshiiyaan kuwa gobolka waa in heshiiyaan kuwa dowladda Soomaaliyeed oo guudna waa in heshiiyaan ayuu yiri Xamse Cabdi Barre sidoo kale wuxuu sheegay in Jubbaland ay ka mid tahay meelaha uu madmadowga ka jiro isla markaasna tallaabo kasta oo ay qaadayaan in noqon doonto sidii lagu heshiin lahaa Jubbaland waxa ay la mid tahay gobolada kale ee laga yaabo in uu waxun madmadow ay ka jiraan dadkeeda waxaan hortabin ku sameyn doonaa dib u heshiisiinta iyo Soomaali heshiisa ayuu markale yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay taageero iyo garab istaag u muujiyaan xukuumaddiisa cusub si dalka looga saaro samata bixinta xaaladaha uu haatan ku jiro siiba arinta abaaraha oo saameyn daran ku yeelatay qoysas badan oo Soomaaliyeed Gado ayaa wali waxa ka jira khilaaf asalka ku haya arimaha maamulka waxayna kamid tahay waxyaabihii saameynta ku yeeshay doorashooyinkii soo dhamaaday ee dalka sidoo kalena waxa gobolkaasi ku sugan ciidamo ay geysay dowladii hore ee madaxweyne Farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay dhismaha xukuumaddiisa cusub iyo sida uu u wajahayo xubnaha golaha wasiirada Xamse ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh isla markaasna awood u yeelata inay fuliso ajandaha waaweyn ee horyaala xukuumadeeda waxa ay noqon doontaa xukuumad tayo leh waxaana ku soo xulan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hufnaanta kartida iyo aqoonta waxaana rajaynaynaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata inay fuliso ajandaha waaweyn ee horyaala ayuu yiri Xamse sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday kaalinta uu golaha wasiiradiisa ku yeelan doono xisbiga UPD oo ay ka wada tirsan yihiin isaga iyo madaxweynaha wuxuuna qiray in golihiisa ay qayb ka noqon doonaan xubno kamid ah xisbiga iyo dadka kale ee Soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay in xukuumaddu uu saldhig u noqon doono dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya xukuumadda aan soo dhisayo waxa asal waa dastuurka federaalka Soomaaliya midda labaad aniga waxaan rumaysanahay xisbiyo sharciyeysan oo axsaaba runtii wadanka wali kama hirgelin urur siyaasadeed ayaa jira marka haddii aad ka wado urur siyaasiga ah ee madaxweynuhu gudoomiyaha ka ahaa miyaad ku ekeenaysaan maya dadka Soomaaliyeed ee kale insha Allah iyo ururkan xaraan kama ahan laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa in badan oo kamid ah laga dhax arko ayuu sii raaciyay hadalkiisa wuxuu hoosta ka xariiqay sidoo kale xukuumaddiisu ay ka muuqan doonaan gabdho isla markaasna uu muujin doono kaalinta dumarka Soomaaliyeed Xamse Cabdi oo shalay helay codadka kalsoonida ee baarlamaanka ayaa lagu wadaa inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada sidoo uu ogaaday Kubal News ra'iisul wasaaraha ayaana qorsheynaya inuu kordhiyo golihiisa wasiirada oo uu gaarsiiyo ilaa 30 wasaaradood halka dawladda odayaana nagala socotaan waa Kubal News kiiska Igraan Tahliilna waa uu sanad jirsaday tallaabo laga sugayo xukuumadda cusub ayaana jirta 26 Juun saacadu markii ay ahayd 8 fiidnimo sanadkii hore ayaa Igraan Tahliil Faarax la waayay xilligaas oo ay ka soo baxday guriga ay degneed oo ku dhow xarunta nabad sugidda ee Habar Khadiijo markaas oo ay kaamirada qarsoon soo qabatay iyadoo sii galaysa gaari laga leeyahay hay'adda NISA oo waday darawal ka tirsan hay'addaasi Igraan Tahliil ayaa xilligaasi madax ka ahayd qaybta dambi baarista internetka
waxaana soo shaacbaxday in la dilay, waxaana waqtigaasi saxaafadda la hadlay hooyadeed. warkaasi kasoo baxay hay-adda nisa ayaa lagu sheegay in gabadhan ay dishay kooxda al-shabaab kadib markii ay si qorsheysan u afduubteen, balse kooxda al-shabaab oo iyadana qoraal soo saartay ayaa iska fogeysay dilka gabadhaas, taasoo dhalisay jahwareer ku aadan kiiska Igraan. wareysi uu dhowaan bixiyay madaxii nisa ee gobolka Banaadir Yaasiin Farhi ayuu mar kale ku celiyay in dilka gabadhaasi ay ka dambeysay kooxda al-shabaab, balse agaasimihii hore ee hay-addaas Fahdi Yaasiin oo isna wareysi bixiyay ayaa dilka gabadhaasi ku eedeeyay xubno ka tirsan hay-adda oo uu ku jiro taliyaha cusub ee nisa Mahad Maxamed Salaad. dilka Igraan Tahliil ayaa ka mid ahaa dhacdooyinka ugu waaweyn oo ay la kulantay dowladii hore oo sabab u noqday in xilka laga qaado agaasimihii hore ee nisa Fahdi Yaasiin, iyadoo kiiska Igraan uu weli ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida. kiiskan ayaa hadda waxaa laga joogaa 1 sano, welina waalidiinta Igraan waxa ay dalbanayaan in gabadhooda ay cadaalad hesho. xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse ayaa looga fadhiyaa inay jiho sax ah u marto kiiska Igraan Tahliil oo noqday kiis la isku turtuuray. waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa Ruushku waxa uu wajahayaa guuldaradii ugu weyneed muddo 25 sano. dalka Ruushka ayaa qarka u saaran guuldaradiisii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1998 iyadoona maanta uu ku egyahay waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inuu bixiyo 100 milyan oo dena. Ruushku wuu hayaa lacagtaasi wuxuuna rabaa inuu bixiyo, balse cunaqabateenada saaran ayaa u saamaxaynin inuu deen bixiyaasha siiyo lacagtooda. aqalka looga armiyo Ruushka ayaa waxa ka go'naa inuu ka fogaado guuldaradiisii ugu horeysay tan iyo 1998, taas oo dib weyn ku ah sharafta dalka. wasiirka dhaqaalaha Ruushka ayaana xaaladan ku tilmaamay mid jahwareera. Ruushka ayaa u muuqday mid aan arintan ka baaqsan karin tan iyo markii ugu horeysay ee uu Mareykanka iyo midowga Yurub ku soo rogeen cunaqabateen kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. waxay cunaqabateentan dalkaasi ka hor istaagtay lacagaha ugu jira bangiyada adduunka oo fududeyn lahaa lacagta ka imaanaysa Ruushka ee la siin lahaa maalgashayaasha daafaha caalamka ku sugan. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay dooneyso inay dhammaan lacagaha ay waqtigooda ku bixiso, taasna ilaa iyo hadda way ku guuleysatay. ilaa 40 bilyan oo kamid ah deemaha Ruushka lagu leeyahay oo dollar iyo euro iskugu jira ayaana kala bar waxay yaalaan meelo ka baxsan dalkaasi. haddii maanta uu ku guuldareysto inuu bixiyo lacagahan, waxay noqon doontaa guuldaradii ugu horeysay tan iyo 1998 dhammaadkii xukuumadii Boris Yeltsin. lacagta dulsaarka ah ee dhan 100 milyan ayaa waxay ahayd in la bixiyo 27 May. Ruushka ayaa sheegay in lacagtan loo diray Euroclear oo ah bangi u kala diri lahaa maalgashayaasha, balse ay lacagtan halkaasi ku xayiran tahay sida laga soo xigtay Bloomberg News, isla markaasna aysan deen bixiyaasha helin. ma aysan helin ayuu yiri qareen Mareykan u dhashay oo ka soo shaqeeya kiisas badan oo deemaha dowladeed ah. suurtagalnimadana waxa ay tahay inaysan helin haddii aysan lacagtan ku imaan 30 maalmood gudahooda oo kamid ah xilliga loo qabtay oo ah fiidnimada Axadda. taas waxaa loo aqoonsan doonaa guuldaro ayuu yiri. Euroclear ma uusan shaacin in lacagtan la xayiray, balse wuxuu sheegay in uu hogaansamayo dhammaan cunaqabateenada. guuldaradu waxay u muuqataa mid aan laga baaqsan karin markii waaxda dhaqaalaha Mareykanka ee go'aansatay inaysan cusboonaysiinta ka reebin gaarka ah ee shuruucda cunaqabateenta u ogolaanaysa maalgashayaasha inay lacagaha dulsaarka ah ka helaan Ruushka, taas oo ku ekeyd 25 May. aqalka looga armiyo Ruushka ayaa haatan u muuqda mid taas garwaaqsaday, isagoo 23 bishan sheegay in dhammaan deemaha lagu bixin doono lacagta dalkiisa iyadoo la soo marsiinayo bangiga Ruushka, inkastoo qandaraasyadu ay ku qoran tahay in loogu bixiyo dollar ama lacagaha kale ee caalamiga. wasiirka maaliyadda dalkaas ayaana qiray in maalgashayaasha caalamka aysan awoodi doonin inay helaan lacagaha sida ay shaacisay wakaalada wararka ee dalkaasi Ruushka. wasiirka maaliyadda Ruushka ayaana xaaladan ku tilmaamay mid jahwareera. weli ma cadda qaabka sida rasmiga loogu dhawaaqi doono in Ruushka uu ku guuldareysto bixinta deemahan. hay-adda qiimeysa deemaha oo qiimeeyaan mudnaanta deemaha ee dadka wax deensada ayaa caadiyan doorka ciyaarta ku dhawaaqista arintan, balse cunaqabateenada midowga Yurub ayaa ka mamnuucay inay lug ku yeeshaan Ruushka.
taasi ka duwan deembixiyaasha qudhooda ayaa ku dhawaaqi kara waxayna ruushku ka codsan karaan inuu degdeg u bixiyo dhammaan lacagahooda. haddii ruushku ku guuldareystay inuu bixiyo waxay saari karaan maxkamad si ay lacagtooda u helaan. arrintan ayaana saameyn la taaban karo ku yeelan karta ruushka. dalalka aan deemaha bixin ayaa waxaa suurtagal u ahayn inay deensadaan lacago kale, balse ruushka ayaa haatanba waxaa mamnuuc ka ah inuu wax ka deensado reer galbeedka kadib cunaqabateenadii la saaray. oo waxaa la sheegay in maalin walba uu ruushku balaayiin dollar ka sameeyo dhoofinta dhuxul dhagaxda. wasiirka maaliyadda dalkaas ayaana bishii abriil sheegay in dalkaasi uusan u qorsheysnayn inuu lacago dheeraada deensado. guud ahaana daawadayaal nageynta warkii waad kala socoteen janalka Hubaal News. fadlan daawada haddaan ugu cusub tahay nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada hel wararka aanu ku baahina janalkan. aragtidiinana halka hoosan noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeyo la wadaaga asxaabtiina. laagtiinana waa inoo muhiim waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News.